ninkan naagtiisii iyo dhammaan dadkii oo dhan wuxuu u jilay in uu yahay nin camoola aanan wax arkeenin weliba muddo badan. laakiinse waxaa la ogaaday xaaskiisii markay dhimatay kadib inuusan ninkan ahaan jirin qof camoola ah, iyo sababta keentay inay xaaskiisa geeriyooto iyo ninkan waxa ku kalifay inuu sameeyo arrintan muuqaalka ku daawada insha allah. inay idin cajabisa ayaa rajeynaya iyo qiso kaloo gaaban ayadan aan soo raacsiin doono. labada qisadood waxay yihiin qisooyin aad iyo aad u gaagaaban laakiinse macno aad iyo aad u weyn xambaarsan. soo dhawaada idin leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaala qaaliga ee ku xiran janalkayga Munaysa Channel, meel walba adduunka joogtaan in ay ugu caafimaad qabtaan arjeena. fadlan haddii ay tahay markuu ugu horeysa aad janalkayga soo booqanayso waxaa kaa codsanaa inaad subscribe noo saarto, gambaleelkana aad furato si video walba aad soo geliyo oo kugu soo dhaca maba u noqoto daawadaha ugu horeeya. aad iyo aad umahadsantihiin idin leeyahay sida wanaagsan mar walba ila socotaan, kommentidiina quruxda badan leh, ducooyinkii dhiirigelinta isugu jiraba. jasaakumullahu khayrna idin leeyahay. walaalaha cusub, walaalihii hore la joogi jiraba, soo dhawaada gacmo furni qalbi saafiya. fadlan waxaa idinka codsanaynaa muuqaalka like-ta ii saartaan, intaasna waa codsi iyo dhiirigelin ayay ii tahay. maalmaha wax ma soo duubin, goosa aad iyo aad ii xanuunaayo. insha allah hadduu ilaah yiraahdo kolley jimcaha in lasoo siibi doono aan rajeynaa. hadda idinla hadlaayo kaniina ayaan soo cabi, wallaahi iyo bilaahi aan been idin sheegaynin. waxaa isdhahay walaalahaaga muddo badan ayaa kala maqnaydeen, bal isku day inaa muuqaal u duubto. saas darteeda ayaan hadda usoo fariistay. marka idinkan waxaa rajeynaa inaad like-ta muuqaalka aad saartaan ina soo duceysaan insha allah. dhammaan inta xanuunsan allah noo wada caafiyo, qof walba muraad lana ilaa muraadkiisa ha u sahlo. qisadeena ayaan usoo laabanaynaa. qisadan horta waxay ka dhacday wadamada galbeedka ayay ka dhacday, ma ahan wadan carab ma ka dhicin, wadan africa ama soomaaliyana kama aysan dhicin. waxaa jira wiil markaasi dhalinyaro ahaa oo markaasi iskuul dhigan jiray. iskuulkii uu dhiganayay ayaa wuxuu ku bartay gabar dhalinyaro ah. ayadana gabadhii iyo wiilkii waxaa dhexmaray xiriir jeceela. labada qof waxay ahaayeen labadooda laba qof oo aad iyo aad daacad isugu ah, midba midka kale daacad uu u yahay. dadkan galbeedka ah sida wada ognayna ma ahan jeceelkooda jeceelka oo soomaalida oo kale ma ahan. hal lugna lagugu jecelyahay, hal lugna gadaal ay kaa jirta ma ahan. laakiinse dad waxay ahaayeen aad iyo aad isku jecel, waxayna markaas mustaqbalka qorsheeyeen in ay isguursan doonaan. laakiinse waxay ku wada noolaayeen xiriir ah, xiriirka saaxiibtinimada ama boyfriend ayay ku wada noolaayeen. markii ay waxbarashadoodii ay soo dhameeyeen oo maanta ay noqdeen dad markaan wax qabsan kara, da-dii guurkana gaaray, ayna isku filnaaday, ayna markaas kharash samaystay ay markaas ku noolaan karaan ayaga iyo ilmihii ay dhali doonaanba mustaqbalka. kadibna waxay go-aansadeen inay isguursadaan. sidii ayay isku guursadeen gabadhii iyo wiilkii. markay isguursadeen waxaa u bilaabatay nolol aad iyo aad u qurux badan, aad iyo aad u fiican, oo midba midka kale uu ku qanacsan yahay nolosha qofkaani uu kula jiro. jeceelkoodana wuxuu ahaa jecel markaas mukhlis ah oo yacni ay aaminsan yihiin. ma ahan sida hadda annaga oo kaleento waxaa laga yaabaa qofka ninka asagoo xaasle inuu qof kale oo shukaansanayo kale, laakiinse gaalada annaga way naga bedelan yihiin. halka qof markaasi uu jeclaado ama nolosha uu la wadaago naftuu gardhigaa, inay ka dhimato misna inuu asaga ka dhinto ma ogiye. muddo sanado ayay isqabeen gabadhii iyo wiilkii, wax caruurana ilaahay maba siininbo. takhtar walbana yacni waa isku dayan inay aadaan, inkastoo ayaga ahmiyad aysan u lahayn inay ilmo dhalaan. muhiimadoodu waxay ahayd qofba qofka kale inuu helo qofta uu jecel yahay uu noloshana la wadaago. annaga soomaali saacadda haddaan ahaan len waxaa liila in adeerta waryaa guurso, gabadhan yay ku cimri goynin, caruur kala dhal ama xaas kala yeelaa la isdhiila. laakiinse dadkan muhiimadooda waxa waaye jaceylka waaye, iyo sida markaas ay u aaminsan yihiin jaceylka heerka uu ka taagan yahay. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a inay gabadhii ay xanuunsato, takhtar la geeyo, kadibna lagu soo sheegay cudurka kansarka ee dilaaga ah. ilaah subxaana watacaala hanaga najeeyo annaga iyo idinka iyo intii muslimiinba ah. markii lagu soo sheegay kadib gabadhii aad iyo aad ay u xanuunsatay, cudurkii ku xanuunsatay.
يعني qofka bini'aadanka waa dareemi kartaa markii xanuun uu ku dhaco oo xanuunkana markaas daawadiisa iyo sida looga kacayo ee aad iyo aad u yar tahay saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku yeelanaysaa. Gabadhana waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan ay ahayd oo joog iyo jamaalba leh ayay ahayd. Gabadhii waxaa bilaabatay in jirkeedii uu isbedelo uu khayirmo maadaama ay cudurkan yacni uu ku dhacay. waxaa xitaa la sameeyay oo lagu bilaabay daawooyinkii kiimiyaawiga ahaa ee la duraayay ee la siinaayay ee qaadanaysay kadibna jirka bini'aadanka yacni ma xamili karo daawooyinkaas la siinaayo. gabadhii jirkeedii adiga isbedel aad iyo aad u weyn ayaa ku yimid. aad iyo aadayna yacni isku dhibsan jirtay markii ay jaceylkeeda ama xaajigeeda ay ka hor imaanayso uu ku arkayo xaaladda markaasi ay ku sugan tahay. waxaa dhacday ninkiina inuu asagana uu arintii uu ku murugsada gabadhii uu aad iyo aad yacni u saameyso. maalin maalmaha ka mid ah asaga oo xaaskiisii xanuunkeedii iyo xaaladda ay taagan tahay ka fikiraya inuu shil baawuur galo. shilkii baawuurka uu galayna indhihii ay dhibaato ay kasoo gaareen ninkeedii takhtarkaa la geeyey. waxaana la dhahay lagama yaabo dib dambe indhahaaga inaa wax u aragto oo aragga ayaa beeshay ayaa la dhahay. xaaskii iyo wiilkii yacni dad waxay noqdeen musiibo ku dhacday. gabadhiina cudurkaana ku dhacay, ninkiina indhaha ayuu beelay. marka waxaa bilaabatay gabadhii in jirkeedii oo dhan uu maxay ahayto nusqaamo oo miisaankeedii hoos u dhaco ay iyadii dhan lafalafowdo oo timihii ay gurmaan oo maxay ahayto timihii dhan say u joogeen yacni ilaa iyo waqtigii yacni ugu dambeysay ay madaxii uu ka noqday meel xiiran ama tintii eber ay noqonayso ay keligeed iska ruqruqayso. kadib madaxii oo dhanaa laga wada xiiray. gabadhii indhihii goday galeen. waa ogtihiin ilaahay ha naga hayo cudurkan dadku ku dhaco sida uu u galaayo. shakligeedii qoftii ahayd way iska bedashay gabadhii. waxaa dhacday gabadhii inay geeriyooto oo ay dhimato. laakiinse ninkeeda intuu indhaha la'aa iyo gabadhan intii ay xanuunsaneed yacni isla joogoodii waxay ahayd muddo sanad ah ayay gabadha xanuunsanaysa oo sariir oo takhtar ay ku jirtay. ugu dambeyn markii ay dhimatay oo maxay ahayto yacni duugteedii iyo waqtigii ay kasoo wareegatay kadib yacni muddo waqti ay kasoo wareegatay ninkeedii waxaa la ogaaday in markaasi uusanba ahayn nin indhala. waana la weydiiyey oo waxaa la dhahay maxaa kugu kalifay in xaaskaagii oo xaaladaasi ku sugneed aad iyo aad u dhibaateysneed inaa adigana ah usii jisho inaad tahay qof camoola ah. markaasaa wuxuu ku dhahay xaaskeyga adduunka waxay ahayd qofta kaliya aan ugu jeclaa waan u adkeysan waayey xaaladda markaasi ay ku sugan tahay. waxaana dareemoo dhahay inaysan yacni ku qanacsaneen inaan ku arkayo xaaladda markaasi ay ku sugan tahay iyo maxay ahayto ay dareemaysay inay aniga qalbigayga dhaawaceyso amaba aniga aan maxay ahayto aan dhibsanayo sida ay noqotay qaab ahaanteeda iyo sida ay u ekaatay. kadib wuxuu yiri markaan shilka galay takhtarkii ayaan waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaa waraaqada caddeemaha ay siiso oo aad dhahdo ninkaani indhaha ayuu beelay. anigana muddadaasoo dhan waxaan u matalayaa waxay ahayd si xaaskaygii niyadeedii ay u degto aysan yacni fikirka badan uusan cudurkii ugu sii tiigsaneyn darteeda ayaa u yeelayay. haddana waa ay geeriyootay oo yacni way baktisay way geeriyootay laga dheh qoftan hadda way baktisay saas darteedaan igu kaliftoo dhahay. yacni heerka ninkan uu xaaskiisa jeceyl iyo muqlasnimo uu ugu ahaa xaaskiisa yacni ay caddeynaysaa. hadda annaga man laga yaabaa lamaano Soomaaliyeed xaaskiisa inuu saas muqlis ugu noqon karo uu u sameyn karo uu daacad ugu noqon karo. wiilal daacad way jiraan way yacni laakiinse way yar yihiinoo inta aan daacadda ahayna ka badan saas darteedana loo soo qaadanaynin. laakiinse wiilal daacada way ku jiraan. intaan daacadda ahayna ilaahay daacadnimada ha kusoo toosiyaan leenahay. marka qisadan meeshaas ayay ku ekaatay. wiilkii sababta ku kaliftayna saas ayuu u sheegay. waxaa jirta qiso kale ayadana tan ayadana yacni la mid ah. qisadan ayadana sidoo kale waxay ka dhacday wadamadan galbeedka ayay ka dhacday. waxay ahaayeen ayagana lamaano ayay ahaayeen oo aad iyo aad isku jeclaa. lamaanihii waxay ku heshiiyeena waxay ahayd in ay isguursadaan. yacni qisadoodii qiso oo xilli hore dhacday waaye. waxaa dhacday xilliyadii yacni dagaaladii hore oo waqtiyadii hore waa iska ogtihiin in ninkii markaas dadka ciidanka lagu daraayo maxay ahayto dagaalka la gelinayo
in ninkii ay gabadhan jecleed uu raaco oo la geliyo la waayo. yacni dad qaar waxaa jirtay bannaanka laga wadanayo sida dhalinyaradoo kale. xilligaas dhalinyarada markaas la qaadan jiray oo difaac si yacni waddankii ay u difaacaan ama cadowgii waddanka ay uga dhiciyaan oo kaleento. inta markaas raaliga ah si sharafaa lagu wadaya, laakiinse inta diido ama kasoo horjeeda ee mucaarada inay dagaalka ka qayb qaataan wadooyinka ama maxay ahayto guryahooda si qasaba in garbaduub loo xiro kadibna loo dagaalaysiin jiray. marka gabadhan iyo wiilkan waxay ku wada heshiiyeen in ay isguursan doonaan ayay ku wada heshiiyeen. waxayna ahayd qof aad iyo aad u jecel asagana sidoo kaleento. subaxyada ka mid ah ayuu wiilkii baxay. markuu baxay kadib yacni xaafadii isla wada deganaayeen oo daris ayay ahaayeen. subaxii gabadhu wuu macsalaameeyey, wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan baxo oo bannaanka aan aado sida caadada ahayd, kadib markaan soo noqdana waa is arki doonaa. laakiinse gabadhii wiilkii dib dambe ma uusan ugu soo noqonin. waxaa dhacday in muddo 40 sannadood ma yartee yacni dadku waxay ku kala qiyaasayeen 30 ilaa 40 sano ayay ahayd inta uu maqnaa ninkii. waxaa dhacday 40kii sano ama dhowr iyo 30kii sano kadib in uu ninkii soo laabtay. gabadhii oo duqowday oo maxay ahayto waayeel noqotay ilaa xilligaas qof markaas shaab ayay ahayd, laakiinse mar haddii 40 sano meesha kasoo wareegatay qoftu waxay noqonaysaa qof waayeel ah oo isbedeshay oo cad noqotay ay noqonaysaa, oo laakiinse iska socoto jirkeedii yacni isbedelay, duuduubmatay, harag noqotay ayuu ninkii soo noqday. markuu soo noqdayna waxaa la socdeen xaas uu qabay iyo caruur uu dhalay ayaa la socdeen. gabadhii ayuu dib usoo raadiyey. markii ay is arkeenna markaasaa wuxuu ku dhahay hebloy sidee tahay? markaasaa waxay ku tiri aad iyo aadaan u fiicanahay tiri, maadaama adigaba aan ku arkay ayay dhahday. markaasaa wuxuu ku dhahay qoftan waa xaaskeyga, kuwanna waa caruurteeda ayuu dhahay, ee adiga xaajigaaga iyo caruurtaada aaway intaasi sano aan kala maqneen, yacni aniga nololaan samaystay, caruuraan dhala ayuu dhahay. markaasaa waxay tiri aniga kama xumiyey tiri inaanan nolol samaysanin oo aan caruur dhalin oo aan xaaji samaysanin, kama xumiyey tiri, laakiinse waxaan ku faraxsanahay inaan ahay qof muqlisad ah oo muddada intaan la eg adiga ku sugaysay. maalinkai aa albaabkaas kasii bixaysay ayaa sida aan kuu eegayay ayaa ilaa maanta albaabkaas aan usii eegayay oo aan islahaa goormuu soo laaban doonaa, goormuu soo noqon doonaa. taas ayaan ku fikirayay tiri. riyadeediina waa ii rumooday oo waad soo laabatay adiga oo caafimaad qaba. aniga waxay tiri qofka kaliya ee nolosha aan jeclaaday waa adiga. qofka kaliya aan rabay inaan nolosha markaasi la wadaagana adiga ayuu ahaa. mar haddii aan nolol samaysatay oo caruur aa yeelatay, adiga caruurtaada iyo familkaaga allah kuu barakeeyo oo kaleento. aniga waxay tiri xasuus ayaan ku noolaa, xasuustaada ayaana ku noolaa, mana ka shalaanayay tiri. waan ku noolaa, waana ku noolaan doonaa, waana ku dhiman doonaa. bal labadan lamaano waxaa qof yacni oo inkastoo isjeclaayeen laakiinse naagtan si daacad dhaaftay ayay ninkan u jecleed oo cimrigeedii waqtigeedii wax walba ay u siisay oo asaga kaliya ayay isku koobtay. laakiinse asaga nolol ayuu ka samaystay, xaas ayuu samaystay, caruur ayuu samaystay. marka jaceylka inkastoo uu jaceylka jiro laakiinse waa lasii kala daacadsan yahay. naagtan jaceylkeeda aad iyo aad ayuu daacad u ahaa, qof muqlisad ayayna ahayd oo ninkaas aamintay. marka labada qisood sidaas ayay kala ahaayeen. waxaana rajeynaa inaad ka heli doontaan. kolley maba noqon karno annaga, laakiinse inaan xoogaa yar isku dadayno oo daacad aan isku noqono. gabar ku aamintay weligaa ha qiyaanin, nolosheedana wax dhibaataa u geysanin. adigana gabaray sidoo kale wiil ku aaminay ha qiyaana. haddaadan waxba u qabanaynin marka horeba ha la gaarin heer uu kaa maarmi waayo, heer uu is ilaawo, heer uu naftiisa adiga dartaada uu dhibaato ugu geysanayo ha gaarsiinin. marka horeba udeyriyo waxaa dhahdaa anigii adiga isma wadi karno ama isma qaadi karno.
wiilow adna ama gabarey haddii qofkii aad jecleed aaweyso weligaa qof shalayto noloshaada kusoo biiray noloshaada ha u burburinin hana usii istaajinin hore u wad nolosha haddii bilaa sabab uu kaaga tagay waayo haddii ay jirto sabab uu kaaga tagayna sababtaas waa inay lahaataa waqti ma ahan mid iska soconayso sida hadda naagtan oo kale 40 sannadood ama 40 sano in ku dhow ninkan ay u xayirneyd oo ay u taagneyd nolosha mar walba way socotaa adiga kuma sugayso kumana istaagayso haddaa muuqaalka ka hesheen fadlan waxaa idinka codsanayaa inaad like saartaan asxaabtiinana aa u share garaysaan haddaa nagu cusub tahayna aad subscribe noo saarto intaan videogan mid lamid ah ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa waxay tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu